xildhibaan Caydiid Khayr Xaashi oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Sheekh iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee degmada Sheekh oo maanta warbaahinta qaranka kula hadlayay gudaha degmada Sheekh ayaa waxa ay baaq nabadeed u direen labadii beelood ee walaalaha ah ee dhawaan dirirtu ku dhex martay deegaanka Faraweyne oo ka tirsan gobolka Sanaag waana kuwan iyagoo arrintaasi ka hadlaya. waxaan ka taxsadanayaa dadkii ku dhintay shaqaaqadii maalintii ka dhacday bariga Sanaag degmada Ceelafweyn tuulada dararweyne aan leeyahay ilaahay wixii ku dhintay ha u naxariisto wixii dhaawacana ilaahay ha shaafiyo. waxaan kaloo halkan ka taageerayaa go'aankii madaxweyne ku-xigeenka ee uu ka qaatay arrintaas ee uu muxuu ahaa go'aanka adag ka soo jeediyay waxaan leeyahay madaxweyne ku-xigeenka ku mahadsan tahay go'aankaas ayay u baahnayd weliba waxaan oran lahaa anigu wixii qori lagu arkay dhigi waayana ilaa waxa weeye waa daalin oo waxa weeye waa khaatuleen cid doonaya inuu dilay deyn hadduu dhig way madax laga toogto oo amarkaan dowladda ay bixiso. waxaan kaloo halkan ka soo jeedin lahaa in ciddii go'aanka jabisay waayo in badan bay dowladda ku noqotay waxbaa la kala dhigay waxbaa la isiri muddaa lagu jiray jundi baa la geliyay markaa ciddii jabisay go'aanka ee waxa weeye bilowday in iyana taana dub loo eego waxaan ugu baaqi lahaa waxa weeye iyagu nimanka way isnaqmeeyeen wax loogu baaqaba la garan maayo waxa isku dileen la garan maayo waxa kala haystaan la garan maayo waxa aynu naahay maanta waxaas loo kala qaado ma garanayno. bismillaahir rahmaanir rahiim magaciiga waxa la yiraahdaa maxamed yuusuf diiriye waxaan ahay oday reer Sheekha waxaan baaqi jeedinaynaa beelaha isku haysta Ceelafweyn iyo hareeraheeda iyo meelaha ay ku dagaalamaya ee walaalaha ah waxaan leeyahay dagaalka hal la joojiyo dagaalkaas mid ah ma hal la joojiyo mid loo baahay ma dagaalkaas hal la joojiyo dadkaas waa dad walaala ah oo wada degan oo wali hoos dhalay oo wax badan isu ah waxaan leeyahay dagaalka hal la joojiyo dadkana waxaan leenahay loo gurmado meesha loo gurmado hala dhex gala beelaha si fiican loo dhimooda loo galo waxaan baaq u jeedinaynaa labada reer halka ku dagaalamaya ummadda iyo odayaasha iyo salaadiinta iyo dawladda waxaan u sheegaynaa weli labada reer waxa ku dhaxeeya gunta lagama gaarin hoos loogu dhaadhaco oo waxay ka bilaabayaan hal arko hal eego oo lagu dhaadhaco weli lama gaarin colaadana halkay ka fidatay halkay tal ku leeday saasaan dawladda iyo odayaasha iyo salaadiinta iyo intii wax garanaysaba ayaanu furaynaa ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu labada qolo kala qaboojiyo colaadda qofbaa ku dhintay qof kuma dhasho walaalayaal iska daaya colaadda iska daaya oo dilka iska daaya waa Faysal Aadan Ismaaciil telefishinka qaranka Somaliland degmada Sheekh.